soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga African Culture maanta waxaan rabaa gabadhan inaan reaction ka sameeyo video ay meeshan soo sameysay oo iga hadlayso maxaan ku iraahdaa ay tayto warkeeda aan dheerayna waxay sheegaysaa aan dhageysana anigii baa soo noqday hadeer soo kujiri warkeeda waa jeclaa inaan dhageysto laakiin waxa waaye waa extreme waay gabadhaanid what is too much too much أعوذ بالله من الشيطان الرجيم horta waxaan idiin sheegaa in yaro hor dhaca waxa ay ka hadlayso waxa weeye waa ninkaas aad meesha ka aragtaan oo 56 jirka ah lagu soo sheegay sawirkiisa waa soo daawaday wiilka waxa la yiraahdaa aqoon u leedahay ma jirto maba taqaano wuxuu yahay ma taqaano weligeed ma arag video waxay ka aragtay muxuu haytay cid baa ila soo hadashay ma waxay tiri waxay ka aragtay video bay ka aragtay markaas waxay loo helaysaa waa qoladan ma dhibaanka weeye badanaa waxay ka hadlaysaa oo dadka lacag ku soo qaata dad waxa jira wadamadan westernka ah lacag ku soo qaata laga yaabay inay dadka tahay ku soo qaata inay maxay waxaan u doodaynaa dadka maxay haytay maartay laga badan yahay maxay haytay cadaan oo lacag nagu siiya saxaaqul insaankan u doodnaay video meelahan la soo dhigaya gaalada lacag looga qaata noocaas u socota markaas waxay ku haysaa Soomaalida waxay ku haysaa weerar bay Soomaalida ku haysaa Soomaalida nimankeeda inaan caayaan rabaay waxaas lacag ku soo qaadataa maxay kale ugu doodaysaa hatta nin Soomaaliya ma qabata naagtan weligeed ma guursan haddana nimanka Soomaalida abay cayda ninka ay maanta u doodayso farq haysato waxa loogu sheegay ninkaas waa ma dhibaan weeyahay waxay rabtaa in lacag ku hesho naxdi may kan haysaa ma taqaana horta ad kan naxdi ma taqaana maxaa adiga taa ma taqaana ninku yaa ma taqaana naaya anigu aqaana sahal baa la yiraahdaa هي دعوة وشرنا كنت نلحد النواجرة ها والمسكين وها والوناكسن ويه السلام وعلك بحر على يراده هو يدي السلاد دبشيلين باليرا نايا أساسا ونقعنا نايا عادك ما فهمتي السلاد دبشيلين باليراده ما فهمتي حبريتي سدوحي دبشيلين باليراده ما فهمتي وأنا المريبانة ويا كوجر بورتنا والوجو مستناقي حنتها محايتي يا كوجر والوجو مستا بريمانك والوجو مستا بين لين هذا ليه عطا أدونك تذكر محايت الصومالية بنت أو شيء بس بريمانك وعي كنا لين حرية في عم بكواز تانا يا هدي وعي أكتها مالناكتا وقوي قاسي ميراس يبرعي كتمين markaasay waxay sameynaysaa maxay haytadii tahay kuleeda waa lagu gumeystaa naaya waxbaan ku sheegayaa dadka aad leedahay badhibaanka ay gumeystaan waxa weeye caysh iyo waxa weeye madaxo bayihiin aniga ehelkay aniga aad ii dhow bareerka laftigooda saaxiib la'aanaya ay daris yihiin naaya ay cunada isla cunaan ay weligood cunada isla cuni jireen oo caysho milix u ahaan jireen caysho milix gurigooda ay tagi jireen gurigooda ay imaan jireen naaya hadii naagay waxba aadan ogeyn beenta iyo baqtiga afaafinayso Soomaalida beenta u sheegayso joog burcad ka timid awalna burcay xaggaasad ka timid ka bacdina Mareykan baa tagtay yaa burtina ku baray naagay yaa ku baray burtina waadiga burtina ka hadlaayay afka ku hadlaysa arag yaa ku yir dadka afkiisa iyo xaar dadka dhan ku burshiya ku yiranaya hadana yaa edab yeelo wiilkan sahal baa la yiraahdaa wiil fiican weeye da'da uu sheeganayna qiyaastii wuu jiraa waa yahay magaaladaasna wuu ku noolaa dadka magaalada joogo dhanna waa nin la yaqaano caan ah oo muxuu haytidito qof muxuu haytay weligiis dhibay qof ma dhibaan magaaladaas weligeed lagu ma dhibin haabad yahay beenteeda bal beenta iyo baqtiga ay dhuraysa arag naaya sharciga meesha ka jira sida ah qofkii qof dila isagana waa loo qisaasaya reerkii lahaa baa loo dhiibaya maxaa loogu dhiibi waayay naaya hadii meesha laftigeeda ninba wiilba hooyadii dilay nafta ka qaaday naagtaas bal waxay ku hadlaysaa arag naagtaas waxay ku hadlaysaa arag warkeeda xooga aan dhageysano wiil magaalada laftigeeda midba hooyadii laftigiisa hooyadii dhashay buu dilay markuu hooyadii dilay isagiina waa la qisaas go'aan baa ka gaareen walaalihiis ay ka gaareen maxkamad baa la saaray walaalkii isaga la dhashay oo hooyadiis iyo aabihiis ba dhaleen baana ayaa qisaasay laftigiisii naagta waxay ku hadlaysaa ayaa meesha caado ka jirta waayo qofkii qof dila waa la qisaasaa si aysan dadku isugu dhicin oo isu baabeenin naaya si aysan dadku isu laynin haddii aan muxuu haytidii sida la sameeynin qabiilada la isu laynaya dadku waa isku baaba'ayaan taa iyadoo la diiday asaa la sameeyo lagu heshiiyay taa waa hore lagu heshiiyay dagaaladii 91 iyo wixii ka dambeeyay dadku markay isleynayeen baa lagu heshiiyay qofkii qof dila in isaga laftigiisa la dhiibo si aan qabiiladu ay dadku ay isu laynin oo dad inta ka badan isku dhigan bal waxay leedahay social media hana inaan wax ku tuuro mooyaane waxba ma
ma sii eego oo ma waqti badan kuma isbangareeyo waxbaan ku tuuraa laakiin ma eego facebookna waxaan ba uga waashay inaan home batankayga wax ka geliyo ka carar mooyaane waxaan uga waashay waad gelaysaayo 6-7 geeriyood baa kugu soo baxayaba markaasaa inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun markaad 7 jeer tiraado inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun de lafaagaad u baqaysaa waaba ka cararaaba Instagram kulli anigu ma eego inaan wax geliyo mooyaane ma eego I don't browse and YouTube newska waxaa la ii soo diro iyo waxa aan dadka ka helo baan anigu maaragtay news ii ah Soomaalida because waan iska ilaaliyaa it always breaks my heart and marka aad ma si eegaba laakiin daano halkayga joogay wax walba igu yimaadaan marka ayaan dhexdaas sheekadani way igu soo duushay gabadh wax ii soo dirdirta information ii soo dirta oo aan aad u jecelahay walaashay Luul bismillah ayaa hadalla ay sheegaysay bay ku soo dartay ninkii markaa waxaa la yidhi ilaahow jannadii ku gee inanka yar ayay bashaar alla ya arxam raaximiin isagana ayaa waxaa la yidhi maalmaha kamid a meeshiisa goobtiisii shaqada ma kaba u tolayay ma maaqaan ayay adigu way isku afdhaafeen baa la yidhi markay isafdhaafeen de waad iska garanaysaan 20 jir markaad ugu xooga weyn tahay fed buu halkaa kaga dhuftaa la yidhi oo ilkaha kasoo daatay ninkan marka isna marka mindidii de wax ku kabaha had iyo jeer mindi baa lagu jarjaraa hareeraha lagaga jarjaraayo oo miishaara mindidii buu ku dhuftay inankii halkii buu ku dhintay marka waxaa la yidhi marka ninkii de waa la xidhay reerkii waxa inanka yarka yara dhintay lagu ku naxariiso ninkani waa nin gabooye ah ma dhibaan ah inanka yarna wuxuu ahaa inan majarteen cumar maxamuudkii dibadda joogay weliba khaasatan waxaa la yidhi aad bay ugu kaceen dad fiican oo maaragtay arrinta aad uga gelgashay oo yidhi ninka walaalkeena aynu intaan dhibaynay qabiilkiisa lagu dhibayo Soomaali oo dhan dhibtay dadkoodii aynu iska dayno aynu saamaxno aynu magta ka bixino reer badan oo masaakiin ugu shaqaysanayay caruur badan dhowr naagtaan bal waxay ku hadlaysaa arag bal anaga waxay noo sheegaysaa arag waxay ku hadlaysaa arag waxay ku leedahay Mareykan baan joogayo wadan sharciilan joogayo kidaan joogayo videogeeda soo daawada daartaan waxay ka hadlaysaa muxuu haytid qofka habka mindida uu qaatay inuu isku difaacayo ma siduu yameynay naaheeda naagtanay wax ma kuu sheegaa sharciyada wadamada aad joogtid waxa weeye qofka waxa weeye haddaad qof isdagaashaan oo muran ka dhaco waxa la isku dagaalayba waa $5 bay ahayd oo kabaha ugu sameeyay haddaad qofka isdagaashaan oo wiilka ninkan uu feer ku dhuftay waxa weeye horta ninka kani kow sahalka ilaahay ha u naxariistee waxa u furnayd markuu u yiri lacagtaada ku siin maayo oo ninkaana waxa u furnayd markuu u yiri lacagtaada ku siin maayo inuu yiraahdo muxuu haytid ku dacweeyo dadka ehelkiisa taasa u furayd inuu faraq qabsado uma furayn waxa u furayd inuu ehelkiisa ku dacweeyo oo yiraahdo ninkaasi kabaan u warhay dadku tol iyo ehel baa la wadayaa magaaladana waa la sii wada yaqaanaa waxa weeyaan muxuu haytid ninkaan kabaan u tolay lacagtiina muxuu haytid imuusan siinin lacagtayda layga siiyo lacagtii waa laga siin lahaa soo maaha $5 halkaas ku helaa isagoo ninkaan farqa ku dhigin waa kow malagiisii baa ninkaan waday tan labaadoo u furay haddana waxa weeye markuu isaga afka ku dhuftay oo ilkaha hadduu ka burburiyo wiilkan yarkaan feer ku dhuftay wuxuu samayn karay gadaal inuu isaga fariisto isagaa nin weyn ahaa inuu intuu iska fariisto iska aamuso ma fahamtay stationka uu tago uusan waxba gacanna u qaadan uu arkay inuu ku xoog weyn yahay uu stationka tago soo dacweeyo markuu soo dacweeyo waa loo soo qaban lahaa waa loo soo xiri lahaa muxuu haytadiito wuxuu heli lahaa dhiiggiisuu heli lahaa iyo xaqiisiiba buu heli lahaa taa ma samayn waxa weeye markii koowaad chance buu haystay oo ahayd $5 markuu ninkan uu bixin waayey wiilkan cumar maxamed markuu $5 bixin waayey ninkan wiilkan sahaliye wiilkan ilaahay ha u naxariisto labada wiilba ilaahay ha u naxariistee chance buu haystay uu yiraahdo waa yahay iska tag ayay dadkiisa uu ka qaatay lacagtiisii waa la siin lahaa taa kama faa'iideysan tan labaadna kama faa'iideysan oo ahayd markuu feer ku dhuftay u gacan qaaday
inuu muxuu hayto inuu ka joogo dib uga fariisto na kama faa'iideysan ee mindiba intuu qaatay buu wadnaha ka geliyey may fahamtay mindibu qaatay wadnuhu ka geliyey sahal anigu waxaan ku aqaanay ama dadka ku aqaanay sida dadka la iiga sheekeeyo aniga eelkayga yaqaana ninkan reerkan reer fiican waaye wiilku wiil wanaagsan weeye aad baan uga xumahay wiilka kale maba aqaan laakiin sahal annaga reerkayga iyagu is yaqaanaan dad ehelkayagaa bay daris yihiin si fiican isu yaqaanaan sahal annaga waxa waaye si fiican baan u aqaanaa wiil wanaagsan buu ahaa wiil iskool soo dhigtay buu ahaa wax bartay magaalada laftigeeda wax ka bartay buu ahaa reer burtinaha dhan ay yaqaanaan buu ahaa sheekadiisa kale anaa keeni doono insha allah intaasaan ku ekaysiinaya naagtan warkeeda beenta naga buufinay